madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Mudane Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa xalay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxa uu kulan casho sharaf ah ugu sameeyay xildhibaanada baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Galmudug iyo xubnihii ergada ahaa ee ka qayb qaatay soo xulistooda. kulanka ayaa ujeedkiisu ahaa isxog waraysi iyo in madaxweynuhu uu u hambaliyeeyo xildhibaanada cusub ee dhawaan ay soo xuleen odayaasha dhaqanka ah ee saxiixayaasha Galmudug. madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Mudane Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysay munaasabada ka jeediyay ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda dowlad goboleedka Galmudug iyo marxaladihii ay soo martay iyo dhibaatada ay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ku hayso arrimaha dowlad goboleedka Galmudug. ku sagoontino xildhibaanada la doortayna ay bilaabaan shaqo inay bilaabaan oo ay wax qabtaan ay gartaan in mas'uuliyadi fuushay. marka ugu horeysa waxaan idiin sheegayaa xildhibaanada dhabta ah ee Galmudug waa idinka, madaxweynaha dhabta ahina waa aniga. sidaad ogtihiin adduunka haddaan sharci la isticmaalin wixii ka soo haraa waa fawdana uma baahnin. aniga waxaa lay doortay 3dii bishii shanaad 2017 maalinta berrito laga bilaabo waxa ay hartay 15 bilood. maalintii 15 bari dhammaato waxaan idinka codsanayaa ciddii aad doontaan idinkaa dooranaya, ma aha xildhibaano imaanayo kale. adinka waqtigiinu waa 4 sano sida dastuurku sheegayo. ciddii dastuur khilaaftana ayada u taal. waxa la dhoodhoobahayo oo meelaha lagu hayana wax shaqaynaya maaha. waxaan rabaa inaan xildhibaanada baraarujiyo, odayaasha baraarujiyo, dhallinyarada baraarujiyo oo aan ku baraarujiyo in ay yihiin kuwa xaqa iyo dariiqa iyo sharciga ku taagan. madaxweyne Axmed Ducaale Geelle Xaaf mar uu soo hadal qaaday arrimaha ilaalinta sharciyada dalka ayaa waxa uu sheegay in madaxda haatan dalka talada haysa ee madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre ay dalka ay ku joogaan ilaalinta sharciga. haddii aysan ilaalin sharciga uu sheegay in aysan jirin cid aqoonsan. sharci baanu samaynay, sharcigaas wuxuu lahaa ciidamada nooc kasta ay yihiin, hadday yihiin military, hadday yihiin booliis, hadday yihiin nabad sugid, hadday yihiin asluub iyo nooc kasta ay yihiin, marka ay joogaan gobolka ay joogaan ayay amar ka qaadanayaan. federaal amar ka qaadan maayaan. taliyaha la keenayo inuu noqdo taliye la isla ogyahay iyo taliye raalli la isaga yahay. Galmudug ama goboleed kasta ciddii uu ka dareemo inaysan la shaqaynin wuxuu xaq u lahaa inuu bedelo. waxaa nasiib darro ah xasan cali khayre markuu halka yimid inuu dhallinyaradii iyo ciidamadii nooc kastoo ay yihiin afka ugu tiray kulligood inay federaal yihiin. war ciidamada caawa joogaa federaal waxaa la yidhahdaa ciidamo inta lasoo qoro gobollada iyo degmooyinka laga soo qoro laysku daray, kuwaasaa federaal la yidhahdaa. federaal lama yidhahdo ciidan gobolkii laga qoray jooga, gobolkaa leh. waxaan uga digayaa oo aan rabaa inaan u sheego dhammaan ciidamada jooga kulligood waa ciidamo Galmudug. wax ciidan oo federaal la yidhahdaa ma jiraan. haddii ay mushaar ka qaataan, mushaarku waa xaqoodii. ma aha in dowladda Galmudug waxay ka mid tahay dowladda federaalka ah, qayb bay ku leedahay waxay hayso, waa qaybtoodii ee ma aha lacag Khayre Farmaajo jeebkooda ka siiyaan. ma waa qaybkoodii, xaq bayna u leeyihiin, waana yeelan doonaan. waxaan uga digayaa oo jeclaa inaan u sheego yaan laydinku dumin gobolkiina. caawa dhuusamareeb waxaa ka taagan dhibaataa ka taagan, meel walbana waa imanaysaa. allihiin hadduu alla yahay ka waantooba in gobolkiina laydinku dumiyo. dadkiinana hallaynina, guryihiinna ha duminina, yaan laydin adeegsan oo laydin adeegsan xaqdarro lagula kacahayo Galmudug. intaas ayaan jeclahay dhammaan ciidamada inaan u sheego. ayaga ayaana xaq u leh mushaarkooda, xuquuqdooda, garaadahooda ayagaa leh, ma aha mid dowladda federaalka ay siiso. madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf dhinaca kale waxa uu nasiib darro uu ku tilmaamay
waxaa ka soconaya magaalada Dhuusamareeb oo uu sheegay in ay yihiin kuwa lagu kala qaybinayo dadka deegaanka dowlad goboleedka Galmudug. بريتا waxaa ka socota doorasho Dhuusamareeb si la leeyahay insha Allah waxay noqon doontaa doorashada cadaado lagu doortay baasto mid kala dooranaya waa kii baasto sameeyo cadaado keenay kan ku xigaana waa kii qaabilay oo maxaad xaashiyo markaa taagnaa meesha gacalna waa kii kala joogay kama duwanaan doonto mana ka duwanaanayso tii baasto oo la doono waligood waa taqaanaa dowladda federaalku inay dowlad ka kalfisto waa caadadooda weeye annaga dowlad baan nahay madaxweyne waa jooga baarlamaanka waa jooga cid wali waa joogta ma aha inay dad soo qaadaan oo xamar ka soo daadgureeyaan xarunta xafiisyada ka shaqeysa oo yiraahdaan xildhibaanaad tihiin haddana ninkaan doorta walwaligiin ma maqasheen ilaah baan ku dhaarshay dadka waa la siiyaa gacan haddii la rabo ha la siiyo hoos ha loo siiyo laakiin dowladdu waxay wadataa xildhibaanadan waxay wadataa madaxweynahan macnaheedu waa maxay waxyaalaha qaarkood wax loo dulqaadan karo maaha wax la dhagaysan karo maaha wax la akhrisan karo maaha dowladdu hebel bay wadataa hebel waa in la doortaa xildhibaanada waa inaan yeeshaa madaxweynaha waa inaan yeeshaa alors dadkana maadigaa leh waa dhibaato weeye waxaan oran lahaa dowladda federaalka arrimahaas haddaysan ka waantoobin way ku ceeboobaysaa kuraasta ay fadhiyaan bay ku noqonaysaa inay laftoodu khatar ku galaan